jimco wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka habeenee telefishinka dowladda Hirshabeelle qodobada aan idin kugu hayno waxa ugu waaweyn taliyaha taakuleenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo abaabul dagaal oo ka dhanaa al-shabaab ka wada gobolka Hiiraan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo faahfaahin ka bixiyay sababaha ay u daahan dacwooyinka iyo dowladda Hirshabeelle oo balaarin iyo dib u dayactir ka wada garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hadda qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal warka habeenee telefishinka dowladda Hirshabeelle ee u diyaar garoobay iyaga intaasi ka faahfaahsan hagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka habeenee telefishinka dowladda Hirshabeelle imikana ku soo dhawaada iyaga intaasi ka faahfaahsan waxaan halkan idinkala socodsiinaya anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah aynu ku bilownay taliyaha taakuleenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxa uu ka wadaa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan wariyaheena Maxamed Baadiyo ayaa faahfaahinta warkan inoo haya